السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markale soo dhawaada saaxiibayaal meel aad joogtaan basi sharmaarka macallimiinta leaders waa salaam iyo ardaydaba caawa iyo suuqa forex-ka waxaan ku horeysiin doonaa marka hore ardayda cusub ee maalmaha isdiiwaan geliyey iyo qof kasta rabo inuu nagu soo biiro xaggee laga bilaabaya suuqa forex-ka kadibna xiisada waxaynu gudbi doonaa falanqaynta suuqa forex-ka iyo waxyaabaha laga filan karo wiigan inay suuqa ka dhacayaan haddii ilaha idmo kusoo dhawaada easy wayland academy waxaan diyaarinay course dhammaystiran oo qofku 90 days ama 90 maalmood haddii uu waqti siiyo suuqan uu si fiican ugu fahmi karayo waxaan diyaarinay manhaj dhammaystiran oo qofku ka bilaabayo level 1 yani wuxuu ka bilaabayaa basic forex waxyaabaha asaasiga suuqa forex ayaa qofka la baraya marka ugu horeysa markay arday tahay oo isdiiwaan gelisay meeshaad ka bilaabayso waa course-ka weeyaan dabcan websitekeena user password ayaad ka haysataa sahalsoftware.com basiga ayaad bilaabaysaa basiga adoon dhammayn meel kale ugu gudbi kartid basiga markaad dhamaysid macallin baa ku hagaya macallinkaasaa kula shaqaynaya su-aaluu kaa weydiin doona haddaa fahantid wuxuu kuu gudbin doonaa ku oran doonaa diyaari qaybta ku xigta level 2ga qaybtaas casharadaas waxaa ku qoran ciwaan u ah technical forex qaybtan waa qaybta farsamada suuqa ayaa lagu bari doonaa qaybta markaad dhamaysid level 2ga waxaad u gudbi doontaa level 3 waxaa lagu bari doonaa risk management iyo sida khatarta iyo waxyaabaha suuqa waa aad iska ilaalin lahayd qaybtan risk management markaad dhamaysidna waxaa u gudbi doontaa qaybta afraad ee loo yaqaan advanced strategy oo lagu bari doono nidaamyada suuqan looga shaqaysto yani halkee suuqa laga geliyaa halkee laga baxaya goorma u wanaagsan yahay waxaasoo dhan baa baranaysaa levelka markaad dhamaysid waxaa u gudbi doontaa level 5 level waxaa lagu dhiibi doonaa challenge wey 50,000 oo dollar baa lagu dhiibaya ftmo ku shaqee baa lagu leeyahay yani shaqee shuruudaha ku xidhan haddaa shuruudaha baasisid lacagta waa dheema kan weeyaan waxaa u gudbisaysaa level 6 halkan waxaa ka bilaabanaya shaqadii dhabteed real account ka bilaabanaya markaa isna waa challenge real account one baan u bixinay yani challenge real account aad bilaabaysa haddaad gudbisid oo baasisid waxaa u gudbisaa markaa level 7 level 7 waxa waa challenge labaad oo markale lagu hubinayo real account saas ku tihiin haddaa kaasoo dhamaysid markaasaad ku nasanaysaa qolka taajiriinta ayaanu naqaanaa ee level 8 maasha allah qolka relaxga level laga dhaafay halkaasay ku jiraan dhammaan ardaydii inta aan wax soo barayn halkaas isaga nastaan tartiibka qofku markaasi degan suuqa uga shaqaysanaya wadadaas ayaa ku talagelaysa haddaad maanta isdiiwaan gelisay ama shalay ama daraad xiisadan waa xiisada qaybta hore wadada cagta lagugu saarayo qaabka wax baranaysa wax kastoo ku saabsan casharadaasna macallin baa ku caawin doona oo kula shaqayn doona oo si gaara ku caawinaya haddaa rabtid inaad isqortid maanta nagu soo biirtidna waad nagu soo biiraysaa adoo liidarkii ama qofkii linkiga caawa ku siiyey zoomka la hadlaya kadibna way soo diiwaan gelinaysaa kadibna ardayda lagu dara insha allah intaas ayaan rabaa inaan kaga baxo qaybta waxbarashada waxaad marka si fiican ila soo dhaweysaan si uu sharmaarke cabdisaaq si uu sharmaarke soo dhowo mas-uul Okay. Waa dhowahay injineer codkayma la maqlayaa. si fiican baa lagu Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa soo dhoweynayaa macallimiinta. Waxaan salaamayaa injineerka. Kusoo dhowaada isbuuclaha programkeeni aynu soo jeedin jirnay ee suuqa. Marka u horreysa waxaan ku bilaabayaa insha Allah sida injineerku sheegay waxbarashada markay ku dhammaato oo qofku waxbarashadiisa uu dhammaysto wuxuu kusoo biirayaa inuu furto account real ah. Accountkaasi oo uu ka furanayo labada broker ee aan la shaqeyno hadba midkii uu doorto. Brokerkaasina ugu horeeya oo aan ka hadli doono waxa la yiraahdaa waa brokerka FX Primes. Haddaad doonaysid marka inaad booqatid ama account furatid waxaad tegi doontaa website-keena easywaylandacademy.com. easywaylandacademy.com markaad tagtidna oo injineerku insha Allah mar dhow uu website-ka noo soo saari doono screen-ka waxaad ku dhufan doontaa qaybta ay ku qoran tahay links ayaa ku dhufanaysaa. linkska markaa ku dhufatidna waxaa halkaas aad ugu tegi doontaa insha allahu tacaala brokerka FX Primes iyo brokerka kale ee magaciisa la yiraahdo O Financial. Waxaa kaloo ka qaadan kartaa oo macluumaadka iyo ku siin karana dhammaan howlwadeennada macallimiinta Easy Wayland Academy oo iyaguna kugu xiri kara saa brokerka u furan lahayd. Runtii dib habeen aad u weyn baa lagu sameeyey FX Primes sidaa aragteen dadka macaamiisha hadda ka ah ama dadka ka noqon doono booqan doona website-koodaba website-ka waxay ku sameeyeen dib casriyeyn bay ku sameeyeen waxayna kusoo kordhiyeen waxyaabo aad u tiro badan bay kusoo kordhiyeen oo howlaha dhan fududaynaya qofka hadduu doonayo inuu dalbado account islamic isla accountka meesha dhexdiisa ayuu isla markiiba codsiga ka dirsanayaa hadduu doonayo in leverage-ka loo kordhiyo isla markiiba meesha dhexdeeda ka samaynaya waxay kaloo soo kordhiyeen qayb cusub oo la yiraahdo Prime Connect la dhaho
prime connect waxay noqonaysaa meel oo social platform ah oo dadka oo dhan ay isugu imaan doonaan oo ay ka wada qaadan doonaan. dad baa trade ID-hooda soo dhigaya oo mataqaan trade signal soo dhigaya. waa meesha mataqaana laisku invite garanaya waxyaaba badan badan oo macluumaad ah ayaa halkaas iyadana laisku dhaafsanaya. marka dib u habeyntaasay sameeyeen. zoom gaara insha allah ka samayn doonaa arrimaha bonuska, arrimaha swipe fee-ga, qaybtan prime connectiga la yidhahdo. marka zoom gaar ah ayaan insha allah ka qaban doonaa ama video baan kasoo duubi doonaa insha allah. dhammaanna akoomada scalpinka sida Premise Zero, akoomada professionalka ah iyadana waa laga helaya kulligeed. haddaan taa ka gudbo, qaybta xawaaladiina waa leenahay oo iyaduna si degdeg ah kugu deposit garanaysa. dadku waxay aad ugu dhiban yihiin lacag yar ayay waxay ka deposit garanayaan kaarkooda. marka ay noqoto inay withdrawal ka sameeyaanna waqti dheer ayay ka qaadanaysaa inay lacagta la baxaan. marka waxaan kula talin lahaa haddaa lacag yar aad ku shubanayso, soo mar xawaalada si aad si degdegana lagugu deposit gareeyo, si degdegana markaa withdrawalkaaga u baahan tahay aad u heshid. marka taasna intaas kaga gudbaya. haddaan kusoo noqdo brokerka labaad ee ah O Financial, runtii O Financial wuxuu ka mid yahay brokerada cusub ee aan shaqada la bilownay. isagana sidaasoo kale wuxuu leeyahay akaano kala duwan. wuxuu leeyahay first time bonus inuu ku siinayo. wuxuu leeyahay inaad kusoo deposit garaysan kartid labadaba AVC ama Salama Bank ama nooc kasta oo Soomaaliya laga isticmaalo ayuu kusoo deposit garaysan kartaa qofku. midda kale waa la fududeeyay dhinaca KYC-gana. marka brokerada insha allahu tacaala ha u daymo la'aanin. wixii caawimaada oo dheeriya u baahatan nala soo xiriir insha allah. inta haddaan ka gudbo, saa la socotaan xaaladaha hadda dagaalka ee adduunka suuqu wuxuu noqon doonaa mid aad volatile u ah, especially haddii macalin Faisal insha allah caawa joogo uu kala analyze garayn doonaa. goldiga waxaan qiyaasayaa inuu aad iyo aad iyo aad kor ugu kici doono xisadaha hadda jira dartood. dadka US oilka laftigeeda ama saliidda oo kale ka trade gareeyadana aad bay u kici doontaa. marka isbedel weyn ayaa suuqa dhinaciisa insha allah ku dhici doona. volatile badanna wuu noqon doonaa. marka aad ha loo taxadiro insha allah usbuucyada soo socda. waa mahadsantihiin. waxaan ku soo celinayaa macalimiinta insha allah. aad iyo aad baa u mahadsan tahay. maasha allah hambalyo usoo qoraysa usha marke. waxaad markana ila soo dhaweysaan macalin Faisal Jaamac. macalin Faisal soo dhowow. fadlan chat ka soo dhoweyn fiican lagu arko. macalin Faisal la soo dhaweey. ku soo aad macalin. mahadsantahay injineere. asalaamu calaykum dhammaantiin. haddii aad shaashadeeda arkaysaan codkaygana maqlaysaan wamanayso qor aan shaashada ka arko. Good. hagaag waa la socotaan. asalaamu calaykum mar labaad. xiisadeenna intaanan bilaaban ka hor waxaan rabaa inaan guda galo isbuucii dhoweyd suuqa maxaa ka dhaca. isbuucii dhoweyd suuq horta waa move ama dhaqaaq aad badan buu sameeyey isbuucan iyo isbuuca ka horeeya labadaba. labadaas yani isbuucii isku xigay. isbuucii hore waxaan filayaa waa isbuucii faa'iidadii ugu badnayd aan one day aan qabanay oo almost waxay ahayd haddaa xasuustaan 1,700 oo biib may ahayd oo maalin keliya ah bay ahayd. kadib trade kale oo iska soo 100 iyo 120 waan qaadanay. isbuucii dhoweyda hadda waxaan qaadanay 2 trade keliyaan filayaa. 2 trade almost waxaan ka qaadanay almost 400 oo biib isu weyn. marka waxaan aad ugu taxadiraynay isbuucii dhoweyd oo aan fursado badan aynan u qaadanin waa dagaaladan iyo culayskan hadda adduunka soo food saaray oo wakti kasta la filan karo inay wax dhacaan. marka taa markii technicalkeenu noo saxmay fundamentalkana xaaladdu aad u adkaatay, marka waxaan sameynay inaanu fursadaha aad u yarayno si aan u qiimeyno at least dagaalkan hadda Iran iyo bariga dhexe ka socda in at least isbuucan mayu dhammaan doonaa isbuuca ku xigu dhammaan doonaa si aan u qiimeyno intuu sii socon karo iyo saameynta uu yeelan karo. sidaas ayaan wax loo yaqaan taxadarka ugu badan u sameynay. haddaba haddii aynu sameeyno bishan lixaad ee hadda aan ku jirno almost waa la gaaray bishii May gidaarkii May sidaan horeyna u sheegi jiray ama falanqeynta guud ila wadaagi jirana waxay ahayd in barta la gaari doono sidoo kale halkan la gaari doono. marka taa ustaad shirmaarka waa la qabaa. dahabka steel bullishka awoodda bayerska ayaa aad u awood badan
waxaanu arki doonaa haddaan usoo noqdo usbuucan waxaa dhici karaya, usbuucan waxaa dhici karaya inaynu aragno big big candle oo hal mar smash gareeya, een, laba shaqo qabta. shaqadaasna ay tahay inuu gidaarkana burburiyo, gidaar cusub samaysto. yacni 3,600 3,550 areadan inuu gaaro waa highly possible. momentumka marka la eego technical ahaan waxaa weeye aad iyo aad ba ugu badan tahay inuu halkan gaaro. boqolkiiba 95 baa lagu tilmaami karaa, boqolkiiba 95 inuu 3,500 inuu gaaro. Een, sidoo kale daily markaan eegno still waxa weeye awoodda waan aragnaa. marka meesha inuu gidaar ah awgeed in awooddan la kaxeyn waayo isniin ama talaado, oo wax aan la qariibsan karaynin oo dhici karaya in maalintaas ama maalinta ka dambeysa oo kale inuu candle fiican oo sell dhaco, kadibna kan dambe selka inuu meelahan kula gaaro, kadibna uu smash gareeyo gidaarkan, kadibna inuu gidaarka toos u gaaro. hadduu gidaarka sideeda uga dhex baxayo oo sideeda u dhex jebinayo, marka waxaa weeye waxaa samayn kara keliya newsyadan iyo xaaladaha hadda adduunyada ka jira. taa way sababi karaan in anagoo subaxii soo kacnay oo New York session oo kale inaan ka shaqaysan oo soo kacnay inaan aragno gidaarkan oo almost table smash gareeyay ama ka shishay wala gaaro. taasna fundamental ahaan way dhici kartaa, maxaa yeelay xaaladaha hadda adduunyada wax yacni sugan ma jiraan. marka labadaas scenario-ba way dhici karaan. marka labadaas ba kii dhacdo waa ka faa'iidaysan doonaa insha allah. waa inuu xiisaddeena casariyaha iyo qolkeena active-ka ah ee East Wayland Academy intaas kusoo gabagabeynaya. kusoo dhow Xuseen Maxamed. aad baad mahadsantahay ustaadii. hadda waxaan kusoo dhoweynayaa ustaad khaalid. soo dhow ustaad. waa mahadsantahay ustaad, waa dhowahay. hoostiga insha allah iga dhigsaan u shirgarayo. dhammaantiin insha allah waa mahadsantihiin. waxaan rabnaa inaan fiirino lacagtan GBP JPY. time frameka hadda waxaa jooga dailyga jooga. dailyga haddaad fiirisay hadda asbuucii dhawaato u dambeeyay lacagtan shantii kan loo arkaysa halkan inaysan dhaafin areadan markii horena qiimaha laga soo celiyey oo ah area adag. sida guud markaad trendiga fiirisid qiimahan waa qiimo abtrend ah oo hadda dhaqaaqaas markuu sameeyey festival baagiisii lama sii jabin, laakiin waxaa arkaysa areada inay tahay area adag oo muhiim ah oo la dhaafin. haddii areada asbuucan la dhaafana oo meelahan intuu soo dhaafo correction sameeyo inuu sii socon karo. direction kuwaad bay, laakiin areadan insha allah muhiim ah asbuucan. 4 hourka markaa fiirisid oo aad soo dhaweysid iyadan oo arkaysa areada inay tahay meel adag oo qiimaha marar badan laga soo celiyey. marka inta halkaas laga soo celiyay halkaasuu yimi, haddana waa tegey mar saddexaadkiina waa yimaaday. marka insha allah qiimahan asbuucan hadduu meeshaas hore jebiyo oo la dhaafana fursad bayaan ka raadinaynaa. haddii meeshaan isniinta la dhaafi waayana insha allah waxaan ka fiirinaynaa hadduu meeshaan dhaafi waayo inaan marka uu dhaqaaqa koowaad correctionkiisa aan ka qaadano ilaa iyo meelahan areada maadaama ay muhiim tahay oo tahay meel qiimaha in badan laga soo celceliyey, kuna sheegaysa inay fursad kasoo socoto meeshaas hadduu lahayd. marka lacagtan GBP JPY asbuuca dambe insha allah qaab noocaasaan ka sugaynaa hadduu lahaydno waxaan arki doonaa. haddana mikrofoonka dib waxaa ugu celinayaa ustaad cabdicasiis. waa mahadsantahay ustaadii. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waan salaamayaa CEOyada, macallimiinta, leaderska, ardayda iyo dhammaan walaalaha hawada nagala socda. soo dhawaada dhammaantiin. waa habeenkeenii sahay ka qaada weeye. alaaba habeenkan waxaan isla fiirinaa doolarka iyo DXY, doolarka iyo euro USD. usbuucan waxaa laga rajeynaya doolarka iyo technical ahaan euro halka iyaduna aadi kayaan isla fiirin doonaa insha allahu tacaala.
waxaan ku horeyn doonaa marka koowaad dollarka inagoo markaas falaqaynta ka bilaabin doona dayliga. In si guud dollarku momentumkiisa hoos buu ahaa falaqaynta saad ula socoteen haddaan hal mar dhan inaga qarayo. dollarka momentumkiisa hoos buu u socday usbuucii dhaweyto falaqaynteedii waxaan ku sheegnay in dollarku still momentumkiisu down yahay aanan ka sugayna markaas in uu new lower loo sameeyo sababtoo ah waxaan arkaynaa dollarku uu kusoo socday trendy dailyga u jeeday markaas hoos waxaan arkaynaa waxaan hadda halkan ka dhacay sida usbuuci bishii May intaana June la gelin wixii halkan ka dhacay inuu ahaa markaas correction oo impulsive uu kan ahaa correction kuna kan ahaa another markaas impulsive kale aan ka sugayna markaas inagoo markaas fiirinaynay time frameska kala duwan iyo qaabka markaas fursadaas ay ka aadi karto hoos u aadi karto 4 hourka sidoo kale haddaan isagana kor marno 4 hourka momentumkiisa isaga laftiisu hoos buu ahaa oo waxaan ku baraarugsanayn waxaan soo laabtay inuu ahaa isaga laftiisa pullback trendiguna markaas uu dailyga iyo 4 hourkaba uu markaa ka sinaa oo uu hoos u jeeday xataa 4 hourka waxaan arkaynay last lower lowgiis inuu halkan ahaa last lower highgiis inuu halkaas ahaa last lower lowgiisna inuu halkan ahaa waxaan markaas laftiisa 4 hour ka dhacayay inuu markaas ahaa isaga laftiisu markaas correction uu ahaa marka 4 hourka sida hadda halkan ka muuqata idin ka muuqata 4 hour lower lowgii uu hoosay halkan uu ahaa 4 hour lower highgiina korkaas uu ahaa dhowr zone waa jireen zone weyn oo dailyga ka muuqday oo suuqa laga soo celiyaa jiray sidoo kale zone score ayaa jiray waxaan arkay markaas in momentumku soo kala wareegay momentumkuna markaas uu hoos yahay marka 4 hourkana waxaan arkay markaas usbuucii dhaweyto waxaan sheegnay momentumku inuu dollarku markaas uu yahay down wuxuuna ku jiray correctionkan uu usbuucii dhaweyto ku jiray correctionkan oo u tagi doonaa qaabku markaas uga soo baxay waxaan arkay ugu dambeyn usbuucii dhaweyto inuu dollarku range yar galay rangekan kadib markaas uu hoos soo aaday inagoo markaas lafteeda momentumka dailyga iyo 4 hourka uu inoo dhex socday down trend laftiisa isaguna inoo ahaa 1 hour 1 hourka waxaan arkaynaa isaga laftiisa inuu momentumkiisu hoos u jeeday waxaan soo laabanayna xataa laftiisa uu down trend ahaa oo maaragtay uu ahaa correction 15 minutes ku dhowr jeer waa iskala wareejiyey oo maaragtay waa kala warwareegay laakiin waxaan arkaynay marka qaabkaas dhacdo waan aragnay in 15 minute-ku uu degdeg u kala warwareegayo in markaas high time frame sida 4 hour oo kale iyo dailyga lagaga jiro consolidationka markaas waxaan sheegnay inaynu waxyaabaha qaarkood uga cabir qaadano yihiin range oo isagu ah maaragtay inta badan suuqu qaabka uu u dhismo ama markuu kala wareegay qaabka suuqu u kala wareego waxaan sheegnay markaas in usbuucii hore hoos la soo aadi karo usbuucan markaas maxaa doorka laga rajeynaya momentumku is wada raacay oo 1 hourka iyo dailyga iyo H4 ku dhamaantood down trend ahaayeen usbuucan markaa maxaa laga rajeynaya usbuucan ma arkayna markaas down trendka aan rajeynay horta soo dhac usbuucan waxaan rajeynaa in bullback ay dhacdo haddana bullback way socotaa inay dhamaatayna waa macquul H1 new lower low horta helnay mar walba oo H1 ka aan helno new lower low ama suuq mar walba new lower low samaysto waxa dhacda in marka qaarkood wuxuu bullback fiican dhacdo sida hadda halkan ka dhacday markuu suuqu new lower lowgan samaystay waxa dhacday bullback fiican hadda markaa waxaa laga yaabaa in usbuucan one more bush kala sii dhaco kadib markaas uu dhaco bullbackta fiican ee rajeynayno hadda markaa usbuucan waxaan ka rajeynaynaa doorku istil inuu down trend sida sida weliba hadda muuqata waxaan arkaynaa usbuucan Friday-gii inuu suuqu bullback soo sameeyay bullbackta una soo xiray gaabkii jiray gaabkan oo markii hore aan rabay inta aana 15 minute impulsive kan uu dhicin by the way usbuucan waa usbuucii NFP-ga oo doolarka soo riday in intaana la tagin markaas new low-ga hoose in la soo xidhaan rabay laakiin suuq muxuu sameeyay uu daatay hadda uu soo xidhay hadda markuu soo xidhay markaas uu zone kan tagay maxaa dhacay in la soo daato marka 15 minute kan tagayna marka 15 minute haddaan u dagano last 15 minute low high-geeni u dambeeyey korkan buu ahaa waa la jabiyey oo waxaan arkaynay in dhaqaaqa uu ka kormaray hadda marka maxaa dhacay waxaan haysanaa H1 iyo 4 hour iyo daily down trend aan haysanaa 15 minute kuna hadda waxaan arkaynaa inuu raacay marka waxaan arkaynaa last lower high 15 minute ke bullback tiirayde ahayd in la soo jabiyey suuq markaas hadda muxuu ku soo jabiyey markaas laba dhaqaaqo maxay 15 minute 1 hour kan tagayna marka H1 ka hadda waxaan ka arkaynaa markaas zone weyn inuu halkan ka jiro waxaan ka sugaynaa markaa usbuucan hadda beri bilow in suuqu bullback sameeyo kadib zoneskan hoose midkood in la soo gaaro
dailyga iyo H4ka lower low sax la helo lower low sax la helo maadaama hadda still 4 hourkii dailyga lower low sax aanu samaysan in markaas inta usbuucan pullback uu suuqu sameeyo kadib uu zoneskan hoosta uu soo gaaro kadib markaas pullbackta dheer ee dailygu ay dhacdo haddii marka doolarku uu hoos usii socon karayn markaas uu sii socdo mid waa taas weeye talabaad waxa weeye waxaa dhici karta in pullbackta aan rajaynayno hadda siday u badan tahay maadaama dailyga maadaama 15 minute-ka iyo ay israaceen H1ku in markaas la laabto zoonka kore lagu laabto hoos la soo aado maadaama pullbacktii hadda halkan ka dhacday ay u eg tahay in ay dhamaatay oo markaas la soo jibiyey dhammaanteed ay dhamaatay momentumkana hadda uu hoos u jeedo sidoo kale order volume uu hoos u jeedo in korka marka lagu laabto usbuucan beri bilaabanaya in si la soo aaday oo macquul haddii saasi dhacdo fursadahaas halkan la jirayna marka haddii markaa uu suuq mar kale intuu soo dhaqaaqo oo uu momentumka intuu uu momentum guud dhexda kasoo samaysto uu 15 minute kan soo jibiyana waxaan sugi doonaa in suuq pullback fiican uu sameeyo ilaa iyo korkan sare lagu laabanayo maadaama momentumka laftiisa H4 waxaan ujeedaa lower high H1 uu korkaas sare inaga xigo waxaan sugi doonaa insha Allah taala in dollarku markaas ilaa korkaas sare pullbackiisu dhacdo haddii qaabkaasi dhacdo oo 15 minute kala jabiyo haddii 15 minute kala jabin waayana fursadda salkan la jirayna ilaa iyo suuqan iyo lower low uu ka sameeyo kadibna markaas pullback saxa ayaan sugi doonaa euro USD hadan yadan aan inta marino euro USD dollarka la mid weeye intuu dollarku sameynaya in la mid ay sameynaysa laakiin waxay kaga duwan tahay iyadu waxay samaysay for H4 high bay samaysay oo waxaa arkaynaa in suuqu uu new higher high H4 inoo sameeyey sidoo kalena full body candle uu ku kor xirmay highgii kan ka koreeyay sida dalka ka muuqata daan calaamadiyo kan waxa ka kor xirmay 1 iyo 2 ka kor xirmay iyadoo waxaan haysanaa official H4 high baan haysanaa oo in badan kadib aan helnay marka high lowgiisa marka dheer oo hoostan hoos noqonay marka pullback waan rajaynaynaa in pullback dhacdo zones kale ayaa korkan sare jira in markaas another intaan DXY way ka sugayeen inay hoos soo aado in eurona iyadana inay beri kor aado waa macquul sababtoo waxay joogtaa sidoo kale iyada lafteedu waxay joogtaa zone 4 hour ay joogtaa oo suuqa la keenay H1ka haddaan u daganana H1ka laftiisu isaguna kor buu u jeedaa oo momentumkiisu kor buu u jeedaa oo suuq wuxuu samaysanaya high highs oo ka highgii H1ku iyadana waxaan sugaynaa markaas in inta hadda dollarkan ka suganayaan ka sugno oo maadaama 15 minute trendigi la kala wareejiyey down trendka high counter trendigi naga soo horjeeday la jabiyey oo ka noqonaya marka oo ka noqonaya suuqu soo jabiyey waxaan ka sugaynaa waliba markuu jabinayna uu ku jabiyey markaas uu ku jabiyey 2 dhaqaaq oo ah trendy oo 15 minute ah oo high ku jabiyey waxaan sugaynaa last H1 zonka u dambeeya in lagu soo laabto oo suuq markaas uu imbalance kan soo xiro imbalance markuu soo xiran ilaa korkan sare haddii la tago waan fiirinaynaa marka inuu suuqu new high sii sameeyo ilaa iyo korkaas sare in la sii tago inta dhigas waa new low gaan ka sugaynayna iyadoo markaas new high keento kadib markaasna pullback fiican H4kii daily pullback ka noqonaysa ay dhacdo hadhow hadduu dollarku euradu ay kor sii socon doonto iyadana marka waan qiimeyn doonaa momentumkii trendigu qaabku u eegaya insha Allah taala wixii intaa dhaafsan waxaan ku fiirin doonaa xiisadeena beri aad baa mahadsantihiin dhammaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته